buskudkan aad u jeedaan waxaa soo saaray Somali Gamer Yaasir Xaajiyo maalmihii u dambeeyay wuxuu qabsaday social media wuxuuna soo jiitay dadweynaha waxaana daawaday dad gaariyo millions laakiin nasiib darro gabi ahaanba waa fake aniga sameeyay ma khiyaamayn karaa dadka adduunkan ku nool oo ma ku qancin karaa in Somali Gamer Yaasir Xaajiyo ay soo wada saareen buskud waxaan isku dayay inaan ka jawaabo su'aashan muhiimka talow sidaan u khiyaamayn karaa sidaan isku daya in aan sameeyo buskud fake ah aynu bilowna hadaba si aynu u gaadhno waxa aynu doonayno inta aynaanu bilaabin waxaan rabaa saddex waxyaabood oo muhiim ah midda koowaad productiga aan soo saaray in aan fikirkeedii la imaado laba in fikradii aynu u bedelno mid xaqiiq ah saddex in wax soo saarkii aynu sameynay aynu social media ku baahino adduunkana ugu dhaadhicino in shaygani uu yahay shay xaqiiq ah maadaama Yaasir Xaajiyo ay ku xiran yihiin ciyaal caruur islaamo odayaal nooc walba oo bulshada kamid ah waxaan isku dayi doonaa in aynu shay macquul ah ka sameeyno si dadka ku xiran ay isla markaba u aaminaan in shaygan ama productigan uu leeyahay Yaasir Xaajiyo caqabada jirta ayaa ah inay jiraan wax soo saaro badan sida sharaab jabis nacnac saabuun xanjo buskud laakiin fikir ahaan waxa ugu macquulsan buskudka waxaanu samayn doonaa buskud chocolate sidaad ogtiin youtuberka weyn ee Masterpiece wax soo saarkii ugu horeeyay ee uu soo saaray markii uu caan noqday waxa uu ahaa buskud sidoo kale youtuberada carabtu iyaguna badanka waxay soo saaraan buskud marka youtuberada adduunku badankoodu waxay ka sameeyeen yihiin fikradda ah in wax soo saarkooda ugu horeeya ay ka dhigaan buskud maadaama buskudku cid walba ay cuni karto shaqada hadaba aynu toos u bilowno waxaan tagay supermarketka igu dhow waxaan ka soo iibsaday dhowr xabo oo chocolate ah muhiimada aan u soo iibsaday chocolate waxa weeye inaan kala baxo chocolate gudaha ku jira shayga ugu horeeyaan qabanaya waa inaan furnaa chocolate oo aan kala baxnaa shayga labaad isaguna waxa weeye bacdan mid u eeg waa in aynu sameynaa kuna qornaa magaca Yaasir Xaajiyo iyo Somali Gamer sidoo kale waxaan qaaday cabirkii bacda hadhow si ayna iga khalkhalin marka aan design-ka sameynayo bacda cusub sidoo kalena halkan waxaan ku haysanaa waxaan bacda ku dhex ridi lahayd jooga balana dhamin horta waxaan wax kale wallahi billahi wala yaab dhexda xitaa waxa ka marsan chocolate yaxba ka marsan magraansa caag yarna uu leeyahay top way ana la isi diyaariyay hal fikrad bay ku soo dhacday inta aan sameyn bacdan halka markaan ku sawiro Yaasir Xaajiyo sidoo kale waxaan ku sawiri doonaa Somali Gamer wuxuu leeyahay sawir miimi ah kulli sawirkaas in badan uu ka soo horbaxay waa sawirkan isaga laftirkiisu aad buu uga xanaaqaa hadii uu arko inkastoo uu isaga yahay haddana marka uu arko uu sawirkan arko aad buu uga xanaaqa waan garan waayay sababtaanu sawirkan aan idin tusay ee Somali Gamer iyo sawirka Yaasir Xaajiyo ayaan ku dhejin doonaa bacda buskudka aan soo saari doono kulli waa qorshe xun waa qorshe aad u sax ah oo aan in badan ka fikirayay ma fashilmi doono wax walba sida ugu saxan ayaan ku soo afmeeri doonaa waan guuleysan doonaa insha Allah hadda waa inaan adeegsadaa hibadeygii Photoshopka kaas oo aan doonayo inaan sameeyo wixii ugu adkaa taariikhdu soo baxay taariikhdu dhacayo meesha lagu sameeyay laakiin meesha lagu sameynayo halkan ka dhignaa waxaan ku qorayaa made in China sababtoo ah wax kasta oo fake ah waxa laga soo saaraa China saaxiibaya sidaad aragtaan waxaan sameeyay design heer caalami ah shaqadan aan maanta qabtay waxaa lagu qaataa kumanaan iyo malaayiin dollar aniguna shaqadan oo dhan kaliya tan waxaan u sameeyay madadaalo yacni idinku inaad ku raaxaystaan muuqaalkayga imaka design-kan qof kasta oo arka isla markaa wuu rumaysan doonaa marnaba niyadiisa kusoo dhici mayso waxaani waa fake waxaan tagay meel madbacad ah si aan u soo daabaco ugu dambeyntiina waan soo daabacay kolley tani waa warqad warshadaha waaweyni waxay adeegsadaan bacad tayo leh laakiin tani kumeel gaar weyn noo noqon kartaa haddii aan wax qaldo ama uu mistake ka dhaco intaan isku habaynayo chocolate-kan iyo bacdan waan guuldaraysan doonaa waanan fashilmi doonaa dadaalkii aynu soo wadnay maalimahaas oo dhanina waa u dhicisoobi doonaa laakiinse taas sidaan uga hortagno waa inaan dadaalkayga oo dhan iskugu geeyaa intan yar waxaan eegay farqiga u dhaxeeya waa iska same wayna isku soo baxayaan gooruntii waxaan isku eegay bacda iyo chocolate-ka sida isku soo bixi doonaan intaa kadibna markii aan arkay inay isku cabir yihiin waxaan adeegsaday xabag dareere ah oo isla markaaba soo kay dhijinaysa bacda dambeyntii saaxiibaya dhalinyaro waanu dhammaystirnay buskudkii cusbaa ee ay soo wada saareen Somali Gamer iyo Yaasir Xaajiyo
iska soo wada duduub haddaba halka ugu muhiimsan ee noo haray waxa weeye in aynu ku baahino internetka. haddaba tallaabooyinkan ayaynu qaadi doonaa saan internetka ugu baahino sidoo kalena ay u noqdaan muuqaalo viral ah. tallaabada koowaad waxaan tegi doonaa supermarketka waxaana si qarsoodi ah halka ugu soo duubi doonaa muuqaalada buskudkan waxaan dhex dhigi doonaa buskudyo badan oo yaala supermarketka si loo rumaysto in supermarketkani uu iibiyo buskudkan dadkuna ay u moodaan wax reeliya. tallaabada labaad waxaan samayn doonaa account TikTok oo cusub waliba TikTok-gana waxaan ugu magac dari doonaa magaca buskudkan. tallaabada saddexaad markaan dhameeyo muuqaaladan buskudka ku duubayo kadibna aan internetka ku baahiyo dadku isla markaba way rumaysan doonaan. sidoo kalena waxay soo wici doonaa Somali Gamer ama Sid Xaajiyo kadibna waxay odhan doonaan Master Shash fikradani waa incredible, wow lama rumaysan karo, wallahi aad baad u caqli badan tahay. kadibna waxay ii soo diri doonaan $1 milyan si aan ugu wareejiyo buskudkan sababtoo waxay ka baxay buskudkan inaan soo saaro kharash badan iyo waxyaabo kale oo badan. kadib markay lacagta ay soo diraan lacagta waxaanu kala qaybsan doonaa daawadayaasha qiimaha leh ee channelkan subscribe gareey sidoo kalena videogan like saar. okay ina marsha haddaba aynu tallaabada koowaad soo samaynay. waxaan qaaday buskudkii waxaanan tegay supermarketkii waxaana si qarsoodi ah ugu soo duubay muuqaaladii. saaxiibayaal ugu dambeyntii waan soo duubtay muuqaaladii. intaas kadibna waxaan sameeyey account TikTok oo cusub waxaan ugu magac daray Sid Xaajiyo aan Somali Gamer. magacaasna wuxuu noqday magaca ugu habboon ee aan u bixin karo. sidoo kalena profile-ka waxaan soo dhigay sawirka Sid Xaajiyo iyo Somali Gamer. intaa kadibna saad aragtaan muuqaaladii aan ku soo duubtay supermarketka ayaa si toos ah u soo geliyay account-kii TikTok ahaa ee cusba. imanka wax tallaabo ah oo noo haray ma jiro, wax walba waan soo sameeyey kaliya waxaan sugaynaa falcelinta dadka waa inoo iyo 24 saacadood kadib. 24 hours later. السلام عليكم 24 ساعة ayaa ka soo wareegtay markii aan muuqaalada TikTok soo dhigay. bal hadaba imaka aynu TikTok furno oo aynu eegno inta qof ee daawatay iyo sida uu internetka ugu faafay. macquul maaha runtii wallahi waa wax aad loola yaabo. wow muuqaaladaasi iyagoo yaala 24 saacadood wax ka yar ayaa waxa daawaday dad gaaraya nus milyan. sidoo kale xataa waxa reaction ka soo bixiyay Somali Gamer. okay haddaba bal aynu eegno waxaanu Somali Gamer leeyahay. وريوت وحني أنا متك سوسة بكنا عصدا عدتك إنه سمايو ربع بس كل كلها سمال جيمر كان عصدياشة هالنبين كان عصدياشة وحصل لك هذا حتى في سوالف لا هيبقى كل شيء فيري قارنت أفريقيا اللي مطي واحد يقول لي أزل حاجي سمال جيمر بس كل يخصص علي هسكعني أنا مسؤول كمية حتى تاني دولة الصومال وين مقصاي محكمة الصومالية أنا واحد مسؤول كمية وما هدي للصوماليو أنا شاتي لقشن على شيء ده كيالي قارنت أفريقيا وحرب على السوق لنا وحرب تتكدل يوسف شنو وحرب ده بالله عليك دولة ما منطقة العزة هاي تنورك أو ما تشوفته فيلا ولا سبسكت عرب على صيني حتى كوربا هاي هدوت أنا هدوت والله بالله هدوت دقيقة عادي نيو فكرت بقى صور عادي ميسكب ده يوم مقال كان يعني يوتيوب كسوق كلني بسكت كأن صمن ميسكب ده يا بس ده هلا سكوا هايستبي أفتي السبب توا والله محكمة الشوتين اللي يسوي استأجي ديار وميهدي أنا يجيب أسلاف فوست كوين بالجوز الرحيبة لكن سي واحد سويدين صومها Somali Gamer سببته وقال واحد نقصين صور كاك قوال هذا صور وشذي هي حال كلام كسر تشين لها بسكت كا ويحيسين لها بقى لكن سي صور ضد وقلت بيتي وين يقول يسمي يعني براكي جاي هو يقول يستي Somali Gamerنا متبان الله مضحني يسأل بسكت وحبا حناقي صح حال كديش لما انت نقد بدين سلام يا مقال كان لايك صار طب كن او لايك يونو كيرانا كان كنا سبسكرايب صار waxaan doonaynaa inaynu gaarno 50 oo subscribers hadii aad doonaysaan challenge-yadan oo kale ama muuqaalo sidan oo kale u xiiso badan comment igu soo qora